waxaad nala wadaagtaa hodan waa tuma goormaad businesskan bilowday sidee baad ku heshay fursaddan soo dhowo marka hore waan dhamahay walaal Asmaan oo waana mahadsan tahay runtii sida quruxda badan oo aad ila soo wadaagtay waxa weeye aad ii soo dhaweyseen waa mahadsantiin waan idinka mahad celinayaa horta haddaan isbaro dhammaan tiimka magacaygu waa Hodan Abshir Mire joogta wadankii Soomaaliya gaar ahaan gobolka Mudug maasha Allah tabaarakallah ilaahay baa horta mahad iska leh alxamdulillah meesha la iigu hambalyeynaya oo maanta la iigu hambalyeynaya igaarsiiyey haddaba walaalo haddii aan la wadaago historygayga ama taariikhdayda dee kolley ma dhammayn karo laakiin aan inta ugu fudud ama uga dhow aan taabto runtii anigu waxaan ahay hooyo waxa weeye haysata awlaad yaryar oo agoon ah korsanaysay runtii waxa la yiraahdo aan horeyna ganacsi hore iyo wax hore aan u haysan jirinin laakiin runtii intii uu dhintay carruurteeda aabahood isku dayday ganacsiyo tiro badan oo macnaha nooc kasta leh in aan macnaha awlaadeyda ku korsado marka haddaba ganacsiga waxyaabo badan oo riskiyo badan ayaa iga soo galay waxaana isku dayin male runtii ganacsigaas dhar baan gaday kabaan gaday raashin baan iibiyey bagaash baan iibiyey runtii waxyaabaha skincare-ka waan gaday barafuunada haddana runtii markasta aan isku xirxiro markasta ganacsigayga riski badan ayaa gala hoos ayuu u baxaa laakiin alxamdulillah dee kolley waan kusoo korsanahay ilmahayga waana kusoo watay markii ugu dambeysay runtii anigoo oo macnaha waxa la yiraahdo hadda ugu dambeysay waqtiyadii ugu dambeysay wadanka waxaa dhacay dhaqaale darro badan ayaa dhacday hoos u dhac badan ayaa dhacay danyartii oo dhan ayaa dhulka gashay oo dhaqaalahooda hoos galay runtii anigoo hiyikacsan oo sanad kasta markaan waxa weeye intaan wax isku xirxiro ganacsigaygu uu siiroo tago markastoo aan wax xirxirana uu siiroo tago haddana hiyikacsan oo aan isleeyahay talow ma Kenya gashaa ma Etoobiyaad gashaa waxaan waxa weeye wadanka dhaqaale ma yaallo waan runtii waxa weeye xilli dhow oo aan fogeyn oo 6 bilood ay waxa weeye ka soo wareegtay ayaan waxaan helay ganacsigan intaanad ma garanaysayay aanad ganacsigeena ku soo biirin ka hor fursado kale aad soo tijaabisay soo maaha oo kuu shaqayn waayay fursado badan ayaan soo tijaabiyey oo weli aan ku dhex jiro oo ganacsiyo badan baan sameeyey maadaama dee hooyo korsata ah oo ilmo agoona haysato fiil laga sugahayo bariis laga sugahayo aan ahay runtii waxyaabo badan oo guulahoo dee dadnimadayda ku saabsanna way jiraan oo aan ka soo gaaray sida inaan macnaha mar walba aan wax ka biiriyo aan wax iskaga xirxiro laakiin dee marnaba anigu meeshay riyadaydu iyo rabitaankaygu ahayd marnaba iima gaarin laakiin alxamdulillah dee marnaba anigu qofna gacanta umaan dhiganayn oo wax ayaan ka qabsanahayay mar walba adigoo hooyaa carruur yaroo agoona gacanta ku haya sidaas kugu filnaan lahayd noloshooda ma garanaysaa wax ugu soo saari lahayd ayaad ku dadaalaysay waay sidee baad markaa ganacsigan aad ku heshay ma dad maysaga ku soo raadsaday ganacsiga mise adigaa soo raadsaday ku soco runtii ganacsigan anigu foorafog xilligan kusoo biiray ka hor maana aanan maqal dad ka shaqeeyana maanan aqoon anigoo jooga maalin maalmaha ka mida gurigayga dhexdiisa aan ku jiro facebookayga ayaan waxaan arkay kaliib xayeysiina oo laleeyahay ma u baahan tahay shaqo adigoo gurigaaga jooga dhaqaalo badan aad ka samayn karto runtii kelmaddii aniga aan soo raacay ama isoo jiidatay waxay ahayd iyadoo gurigaaga jooga dhaqaalo badan aad ka samayn karto kelmaddaas ayaa aan soo raacay waayo social mediaha saacadii leyl waxbaa lagu xayeysiiyaa waxbaa haddana ma fiirin jirin weligay laakiin kelmaddaas darteed ayaan waxaan ugu dhiftay kaliibkii linkigiisii markaan ku dhiftayna qofkii lahaa xayeysiinta ayaan weydiiyey wuxuu igu yiri kambaniga forefe la yiraahdo ayaan ka shaqeeyaa wax su'aalo dheer runtii maan weydiin laakiin kambaniga magaciisa ayaan qortay markii aan qortay wax badan ayaan waxaan ka raadiyey historygiisa waxa la yiraahdo goglaha oo aan ka baaray taariikhdiisii kambaniga iyo meesha uu wadanka uu ka shaqeeyo inuu wadanka Mareykanka laga leeyahay alaab orgaan iyo soo saaro product tiro badan waxaas oo dhan ayaan ka dhargay laakiin nasiib wanaag ilaahay macnaha subxaana qaadir rabay maanta meeshaan rabo inaan joogo aan soo gaaro link waxaan helay YouTube-ka cusubaan ayaan helay intaan ku dhex baaranayay macnaha oon historyga kambaniga baarahayay wuxuuna igu daray WhatsApp-kiisii
okay sidaas ayaan walaalkay waxaan ula wadaagay akhbaar oo waxaan idhi walaal ganacsigan sidee ayaan ugu soo biiri karaa salaamu calaykum ayaa u qoray kadibna walaalkay warbixin ayuu igu siiyey kool annagoo macnaha whatsapp isku wacnay صح runtiina waan ku qancay warbixintuu i siiyey aad baan ugu qancay واي su-aashii aan waxay ahayd weydiiyana waxay hadda ahayd waxaan dib u raacay maalintaan wada hadalnay waxay ahayd April 28 haddana waxaad bilowday bisha April 29 hal maalin baa u dhaxaysay maalintaad aad soo wada xidhiidhnay iyo maalintii aad ganacsigan bilowday go-aankaas yacni ma garanaysaa maxaa kugu dhiirigeliya is dhihi kartaa markaaba inaad businesskii bilowdo dad badan baa caawa laga yaabaa iyaguna warbixintii qaatay weliba aanad zoomna soo gelin oo telefonaad waad ka qaadato maxaa is dhihi karaa rabitaankaas wallaahi runtii waxaa igu dhiirageliyey saddex qodob ayaa igu dhiirageliyey kow kambaniga oo xilliga uu shaqadan bilaabay ama uu shaqaynayay waqtigiisa iyo taariikhdiisa aan dib u raacay productiga uu soo saaro oo macnaha aan ku qancay markii aan baaray iyo adigoo gurigaaga joogta inaad dhaqaalo badan ka samayn kartid saddexdaa qodob ayaa aad iigu dhiirageliyey oo macnaha waxa la maasha yidhaahdo allah aan ugu soo biiray anoon aqoon badanna u lahayn waxyaabo badan oo macnaha markaas aanan ka hayn intaas social mediaha ma ahan cid horey uga shaqayn jirtay ama guula ka gaadhayna aanan aqoon saddexdaa qodob ayaa igu dhiirageliyey wow wow isla markiina waad aamintay ganacsigii waad bilowday anigoo qof Canada jooga oo aydan meel wada joogin ayaa halkaa lacagtii ku dir ku yidhi waa dirtay aaminitaanka intaa le ka war iyadana wallaahi cismaanow ama manager markii aan lacagta dirayey runtii dad badan oo guriga jooga waxay lahaayeen waad qariban tahay waad waalan tahay wax ku qabsada ayaad la'dahay haddii ka waran baloog lagu saaro maxaad ku aamintay ma ninkaa taqaanaa see ku aamintay aniga markaan aaminay productiga iyo warbixintii aad isiisay iyo historyga kambaniga iyo taariikhda iyo waddanka laga leeyahay runtii laba صح ragco oo sunna oo istikhaara ayaan tukaday ilaahay baan ما tala شاء الله saartay waxaana ilaahay ku iri macnaha ilaahay hadduu shar ii yahayna inuu niyaddeydii qalbigayga ka guuriyo hadduu khayr ii yahayna inuu ii fududeeyo ما شاء runtii الله waanan hayaa labadii ragco sunnada ahay aan tukaday istikhaaradeedii waayo waa midda meesha aan maanta joogo isoo gaarsiisay sidaas واو ayaan ku aaminay واو ما شاء الله دا ولا لي بك ورما الى مركه تلا صارت فاذا عزمت فتوكل على الله ما شاء الله تبارك الله كلاي waa ku fududinaya khayr oo dhan ku fududinaya ma sha Allah runtii waxa weeyaan cabsida qofku marka ilaahay baa tala saarta mar kastaba tala saarashada rabbi waa guul weeyaan aad bay u maasantay walaasheen waaye ganacsiga waad bilowday naga wara haddaba isbedeladii 6 bilood baad ku jirtaa wax badanna maaha haddana 6 bilood gudaheed baad maanta managerada shirkadeena kaga tirsan tahay oo xalay toole aad kula dabaaldegnay ma sha Allah oo soo baxday marka bal safarka 6 bilood naga waran wallaahi runtii safarkaas 6 bilood ah ilaahay baa horta ii fududeeyey oo runtii waxa weeye dee rabitaan iyo ka go'naansho aniga aan tahayn ilaahay wuu igu soo gaarsiiyey managerkayga ama coachkayga runtii ilaahay ila raadsaday anoon wax aqoona iyo aan u lahayna ilaahay subxaana qaadiro asaga ayaa u sabab ahaa runtii waxaa kaloo usii sabab ahaa tiim aad iyo aad runtii aan ugu hambalyeynaya halkaan aan kana salaamayo oo runtii tiim ayaguna halgamayaal ah oo runtii ayaguna hadda darajooyin qurux badan kaga jira kambaniga ama meel fiican ama systemkii saddexaad kii saddexaad levelkii saddexaad iyo kii labaad intaba iyo kii koobaad intaba ku jirana runtii oo aan leeyahay waxaa halkaas macanta inaan soo gaaro ayaga ayaa ilaahay iyo ayaga ayaa sabab u ahaa yaa halkaas soo gaarsiiyey runtii oo aan kuna soo gaaray iyagana waxaan leeyahay jazakallahu khayr hambalyaana leeyahay tiimkaaga marka runtii waan uga hambalyeynayaa iyagana waan u hambalyeynayaa insha allah inayna meel sare gaaraan oo dhammaanteena ka gaaraan ka rajaynayna waaw aad baad u mahadsan tahay waayahay waxa weeyaan ma garanaysaa waxyaabaha 6 bilood aad ganacsigan ka baratay maxaa ka mid iyada ama aqoontaada markay noqoto runtii waxaan ka bartay anigu horta runtii waxaan ka bartay qofku waxa uu damco inuu qabto inuu qaban karo oo hadduu asagu ay ka go'an tahay oo uu diyaar u yahay wax kasta uu ku talagalo ilaahayna uu tala saarto inuu horta uu qaban karo waxaan kaloo ka bartay khibrad iyo runtii aqoon aan horay u lahayn waayo anigu hadda ganacsi horaan ku jiray laakiin ganacsigaas albaab baa ii furnaa
albaabkaas qof ama hormaraya ama daris ila ah ama jaar ila ah ama si kale aan isku naqaano unbaa ii imaan jiray laakiin waxaan ka bartay ganacsigaanu inaan 160 dal iyo in ka badan aan wax ka iibsan karo waxana aan waxa la yiraahdaa dadka aan ka gadi karo dadna aan ka soo waxa weeye aan ka soo xiri karo oo alaabtaydana aan ku iibin karo waayo horey umaan lahayn laakiin khibradaas umaan lahayn inaan macnaha meeshaan joogo meel ka fog aan wax ka gadi karo waayo hadda anoo 6 bilood ku jira alaabtayda Ethiopia ay tagtay Muqdisho ay tagtay Nairobi ay tagtay tiimkaygu Mareykan buu joogaa Nairobi buu joogaa Ethiopia buu joogaa Soomaaliya buu joogaa meelo kala duwan marka de khibradaas maan u lahayn hore inaan macnaha meel aanan joogin aan wax ka qaban karo laakiin hadda wax badan baan fahmay khibrad badan iyo aqoon badan oo aanan horey u lahayn baa ii kordhay 6 bilood runtii mid badanna way ii sii dhimanta aad ayaad u mahadsan tahay hodanay walaalo runtii waxa weeyaan waan ku hambaleynaynaa ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inaad magaranaysaa guushaad joogto iyo mataqaanaa iyo in kasii sarreysaba ilaahay waxa weeyaan uu kugu sii aadiyo insha allah hadda waxa kuu xiga waa gaadhigii dalxiiskii oo socda eagle managerkii iyo weliba mataqaanaa allahu mustacaan bonuska oo isaguna bilaamaya bisha koowaad intaaba xilli fiican baad noqotay oo sanadkii sii dhammaanayo mabruuk insha allah waxaan rajaynaynaa inaad ma garanaysaay mustaqbalka carruurtan abtiga u nahay iyo naftaada baad horumarkan ka gaadhsiiso hore u soco guulaysa walaalo maasha allah allah yabaarik walaashan allah yabaarik baynu leenahay allah barakeeyo waa yahay waxaan rabaa markaa walaalayaal inaan idiin sheego berri 7 galabnimo waxaa jira meeting kale ood nagala qaybgeli kartaan marka intiina horta imise qof baa cusub caawa bal intiina cusub waxaad soo qortaan 11 soo qora intiina cusub leedarada maaha dadka cusub hana xamda haye cabdulfataax haye sacdiyo haye iphone qofkay ku qoran tahay waa imisa haye maasha allah hibo maxamed xasan intiina cusub keliya walaalaha cusub berri galabta waxaa jira insha allah 7 fiidnimo xilliga geeska africa waxaa jira kulankaas waxaa ka qayb galaya dadkiina caawa ka qayb galay ayaa ma garanaysaayey mar kale la rabaa inaad soo noqotaan oo kulanka berri aad insha allahu tacaala aad kaga qayb gasho aad ka faa'iidaysataan haddii ilaa idhaahdo berri wixii ka dambeeya marka caawa intiinii warbixinta si fiican ugu qanacdayna waad bilaabi kartaa isla caawaba si shaqada maadaama bishu ay bilow tahay si shaqadu maadaama ay hadda bishu bilow tahay bishan ma garanaysa shaqo wanaagsan aad u qabataan waqti ay iska luminina eeg walaasheen hadda bal u fiirsada 28 abril ayaanu isbarannay 29 abrilna way bilowday businesska weliba 4 saacad gudaheed bay ku bilowday okay taas waxay noo muujinaysaa waa go'aan